بعض الجامعات وأيضا دينا صاحبي وذاك النهاية وحبرشة أقوليها كإذا دوينها والسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم بيا مرة أقول الرئيسة جامعة سيتي كورت جامعة اللي مدوبي دابل برامج ماستر بروجرام أدبان أسبوعي ولو باهية وحبرشة العلم إلا هرماليو إلا باهيو نبي نوح صلى الله عليه عليه العلم ضلبة هذي كواتنا تشاينا الصين هذا واحد ودا إيش ودم بيسي برجع دونك هاي دلات تشاينا بيسعودان بنغلاديش إيشيا وفي عنتهاي وديه قلينيا قدوميها جامعة وحصوب البرنامج هذا فوق طبعا إن جامعاتها وضن كجودها اللي هاي أي لم يدوبان جامعاتها الدبدة أو خبرة تعليم الله يسوي ذا السدود مركز لقاها الله تعليم تسرع وأهلها الفيعة حبرشة الأساسية مركز اللي تشوفه يحبرشة تبصير وصل إلى سرع ومهمة ضوحة على سارة جودها إسكاش جودها ورقمك إيه أفك إيه ملك إيه جغرافيا إيه ديجانك إيه وحيالها نوعاس لكن تعليم تسرع هدي الآدم الشغل أدوك بالوقت الطبيعي تكتشف معي أنا كسوق حاول حرنا أما هذا شهادة الكبرى شهادة الوالد إن الأخوة وقت تختمل كرسول يد أدوك أو حفظة يأقونته يشغل أبوك يسوقينته يفكر في الأسبوع ده سنة ساد راد وأهل ولا إسكاش يجمعها بناء كإيمانية وده أنت الجامعات الله هاي وأنا كبير قليل إياه نبدأ لما نروح هاي أنا مبدأ كشغلين حبرشة ولنا هذا التعليم تسارع وكل شيء ما ودبيت على البعض باهبة كتيرة تعليم سريع بتلاقي فالله سبحانه إن دولة يذكر بترون إسكاشانية حبرشة وصلها إلى تسير سريع وقت بدل الجديد يدل البلد تياهنا أنا أروحها بالصومالية أما الجبر على غيبة من كوا الصومالية ومع الصومالية مع دولة ديجان الصومالية أما وغير الصومالية أما كفر الصومالية شغف في عام البرغادية بالقبتي وحسوا يقولون لميهين إلا سيد هي هرمالية بحبون ونرجو إن امتحان هذا قدم بكل وقت صوتكم عبد الله نفرستي لنا عاص إنك الصور الرمل السيح وجباهته وحبرشة يطيته وحبرشة شقع على قبتي ميرفي عن مرسى وبقادرين لكن تعليم تسرم كي تواجد لا شغل بدل النوطة والله الدولة ده يجمع عدو مسك عشرة لبعتوك هو وإنه هاي سنة الحكم ده وليه إنه السنة يبدي تعليم تسرع كشغلين هذا كورد ده اسمه بالله سبيعي أنا وحبيب بانك بدي تعليم تسرع دولتي مدبنا الدولة على الكاس والملعاوي عقبات بدن بان هور يمد واشقي واي guddigaas markii dambana waxaan ku aansanay inaan meesha u banayno dadka oo aan anagu caqabad ku noqon oo iscasilaan guddigaas si loo soo dhiso guddi tacliin sare oo heer qaran ah Puntland oo tacliinta sare hagaajinteeda iyo nidaaminteeda iyo sharciyeynteeda kala shaqeeya dawladda iyo dadweynaha arrintaas marka waxa caqabad weli hortaal loona baahan dawladda iyo dadku aan iska kaashano iyo bahada jaamacado caqabadaha labada horiya waxa ka mid ah oo u baahan in dadkeedu ay isha ku hayaan sidii loo xalin lahaana laga fakaro
barnaamijyada master programska inta badan jaamacadaha waddankooda waxay u bixiyaan qaabka jaamacadaha caalamiga aan la midoobay laakiin qaabkii gudaha ahaa oo aqoon gudaha ah iyo cilmi gudaha ah iyo kaadir gudaha ah in jaamacadu ay ku fuliyaan master programski caqabada ugu weyn hortaan waxay tahay waxa aad u yar tirada macallimiinta PhD-ga ee waddanka joogta ardayga master programka dhiganayaan waa macallin PhD oo hawlo waxa inagu yar macallimiinta PhD-ga waddanka joogta oo hawl gala hadday joogaan ma aruursan in la abaabulo oo wasaaradda waxbarashada ay diiwaan geliso oo ay tiro koobto baan ognahay kaadirka aan haysano tiradiisa intuu yahay iyo meelaha ay ku kala takhasuseen baa la rabaa labada caqabadda horta ugu weyn inuu haysta marka laga hadlayo tacliinta master program koobi loo gaaro waxaan rajeynayaa insha allahu in dowladduna ay aragti fiican ka leedahay oo lasoo bandhigay tayaanta waxbarashada tacliinta sida ku jiro wasiir cabdisalaam aad oo asiga ka hadlayay annaguna waa kala shaqeynayna haddaan nahay ama dowladda dadka ku jira oo madaxdeeda ah ama haddaan nahay dadka tacliinta sare jaamacadaha ka shaqeynaya diyaar baan u nahay lagala shaqeeyo wasaaradda iyo dowladdaba dhismaha guddiga iyo sidii xogta tacliinta sare gaar ahaan dadka kaadirka ah waa aruuri lahaa waxaan kusoo koobayaa waxbarashada waxa ugu muhiimsan inay noqoto habdhaqanka dadkeena iyo bedesho nolosheena hagaajiso inaan waxyaalaha nolosha dadkeena hagaajinaya aanu jaamacadaha lagu dhigo oo kaadirka soo baxaya uu yahay mid u tababaran oo diyaarsan la dagaalanka fakriga iyo maamul xumada iyo sidii dadku shaqo u heli lahaayeen dhaqaalaha waddanka kor loogu qaadi lahaa mid ka jawaabaya inuu noqdo waxaan filayaa dareenkaas waa jiraa laakiin in la xoojiyaa loo baahan yahay waxaan ka codsan lahaa guddiga waatii hadda dowladda barnaamij maanta soo martay barnaamij weynaheedii 4 sektor ahaa in qaybta arrimaha bulshada dib hubin lagu sameeyo ishamin lagu sameeyo waxbarashada waddanka dadka kaadirka iyo fiidiyada loo baahan yahay tayeenta waa inuu in laga hadlay oo shaqo badan laga qabtay laakiin kaadirka waddanka u baahan nahay inaan sahameyno intii leeyihiin aan ogaano fiidiyada loo baahan yahay waddankeena in lagu dhigo oo baahiyadeena ka jawaabayana la daraasadeeyaan ku tali lahaa waa mahadsantihiin waa u mahad celinayaa jaamacadda sitikood iyo maamulkeeda hambalyaan idin leeyahay dhammaantiin